waxaa jiri jiray wiil yar, waxa ay ku noolaayeen asaga iyo hooyadiisa xaafadda saboolada ah. Hooyadiisa way xanuunsaneed mana aysan awoodin in ay shaqayso. Maalin maalmaha ka mid ah wiilkii yaraa wuxuu arkay ardayda isku dugsiga ahaayeen oo cunno ku dhex cunayaan dugsiga dhexdiisa. Cunnadaasi oo ahayd wili mid aad u macaan. Gaajo ayuu dareemay kadib wuxuu u aaday xafiiska macallimiinta si uu cunno aga soo qaato. Laakiin macallinkii ayaa isla markiiba soo eriyey wiilkii. Kadib wiilkii wuxuu tagay saldhiggii booliska. Askarigii joogay saldhigga ayaa wuxuu ku dhahay askari, hooyadeeda way xanuunsan tahay, way baahan tahay. Askarigii wuu isku naxay, wuu beer jileecay. Wiilkii ayuu soo raacay, gurigoodii ayuu imaaday. Xaaladooda ayuu fiiriyey. Wuxuu arkay gurigii oo wax cunno ah aanan yaalin. Isla markii askarigii waxa uu la xiriiray hay'adaha samafalka wuuna helay. Kadib wiilkii waxaa gurigooda la keenay cunno iyo raashin aad u fara badan. Wiilkii halkaas wuxuu ka bartay cashar geesinimo ah oo ah in uusan baahidiisii uusan qarsanin oo caawimaad raadsaday.